kulanti waxaan oo wanaagsan saaxiibadaan jecelnahay waxaad ku soo dhawaataan tameereedka tooska kulanka u dhaxeeya labada degme ee kala degmada deegaanka Daarusalaam iyo sidoo kale degmada Yaaqshid qaybtii koowaad ee ciyaarta ayaan si toos ah loo gudagali doonaa iyadoo ciyaartooyda degmada Yaaqshid ay markan diyaar u yihiin inay wajahaan ciyaartooyda deegaanka Daarusalaam baaski koowaad la sameeyay markan ciyaartooyda deegaanka Daarusalaam iyaga kubadda ayaa saaxiibayaal lambarka lixaad ee ciyaartooyda kubadda gacanta deegaanka Daarusalaam markale isaga dib looga soo celiyay waa kan Cabdiqaadir deegaanka Daarusalaam ciyaartooyda iyaga markale ayaa Daarusalaam ya salaam Daarusalaam markale isaga loo soo celiyay Yaaqshid Yaaqshid waxay dhaliyeen goolkoodii koowaad ciyaartiisa waxay ka dhigeen barbaro gool iyo gool ah ciyaartooyda degmada Yaaqshid ee gobolka Banaadir El Kabitaano Cabdisalaam meel fiican u soo dhigay Yaaqshid goolkii labaad ee dhaliyeen ciyaartooyda degmada Yaaqshid ee gobolka Banaadir soo ciyaargalay markan ciyaartooyda degmada Yaaqshid Daarusalaam deegaanka Daarusalaam wali Daarusalaam سنقول قولها عيارتودا ديانك دارusalaam markale Daarusalaam gool cajiib ah markana leeyahay ciyaartooyda deegaanka Daarusalaam ciyaartiisa waxay ka dhigeen 3 gool iyo 2 gool ciyaartooyda kubadda gacanta lambarka 8 ciyaartooydaasi Daarusalaam markale ciyaartooyda kubadda gacanta deegaanka Daarusalaam Yaaqshid ayaa dulaan lagu yahay Yaaqshid markale Daarusalaam markale deegaanka Daarusalaam wali Daarusalaam goolkii 8aad ee dhaliyeen ciyaartooyda kubadda gacanta deegaanka Daarusalaam 8 gool iyo 4 gool ayay ciyaartu noqotay saaxiibayaal deegaanka Daarusalaam ayaana ku hogaaminaysa qaybtii koowaad ee ciyaarta la soo gabagabeeyay lambarka 9aad ee ciyaartooyda Yaaqshid way dhaliyeen markan ciyaartooyda kubadda gacanta deegaanka Daarusalaam iyaga deegaanka Daarusalaam wali ya salaam Daarusalaam lambarka 8aad ee kubadda ku xiray Yaaqshid markale iyaga dulaan lagu yahay Daarusalaam wala soo ciyaargalay markan ciyaartooyda kubadda gacanta deegaanka Daarusalaam degmada Yaaqshid ayaana sameynaysa weerarka Yaaqshid lambarka 8aad ee ciyaartooyda kubadda gacanta deegaanka Daarusalaam markale Daarusalaam kubadda gacanta deegaanka Daarusalaam ayaa soo ciyaar gelin doona penalty محمد حسن حسين isaga tuuraya محمد وكون ciyaartooyda deegaanka Daarusalaam lambarka 6aad ee ciyaartooydaasi Daarusalaam free kick markan Yaaqshid aysan noqon Finito